kulanti wacan oo xiiso leh dhamaantiin khayarta hawada naga daawanaysa ee daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan halkan wareysi kaga qaadayo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo igu soo booqday stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland oo ku leeyahay magaalada London ee dalka boqortooyada Ingiriiska. wasiirka ayaa ka wareysanaya wareysiyo dhinacyo badan taabanaya shaqadiisa iyo guud ahaan xaaladda guud ee dalka waxaana leeyahay Dr. Saad Cali Shire ku soo dhawaad telefishinka qaranka Soomaaliland. dhammaanad aad baan ugu dhawaay waana kaaga mahadcelinayaa wareysigan gaarka ah leeyahay maanta waxaan doonayaa fursad ka faa'iideysanayo halkan u mariyo hambaliyo iyo tahniyad ummadda reer Soomaaliland shacab iyo dawladba meel kasta ay joogaanba aan ku tahniyadeynayo 28 guuradii markaanu ka baxnay midowga la midoonay dawladda Soomaaliya hada jeer waxaan isticmaalnaa la soo noqosho laakiin waxaan ma ereyga kaga haboon inuu yahay ka bixid way runtii meel aan ku saxanay madax banaanadeena iyo xirnimadeena ma aanay jirin kaliya heshiis ma aanu galno mataqaana midnimo kiina waynu ka baxnay markii aan fiicay Dr. Saad Cali Shire aad baan kaaga mahadcelinayaa mar kale barnaamijkan aad la qayb qaadanayso marka koowaad sanadkan hambaliyaad dhiibtay shacab weynaha Soomaaliland guud iyo dibadba sanadkan si weyn ay u dabaaldegeen maalinta xuska 18 May maxaad u aragtaa xuska 18 May ee daafaha caalamka iyo Soomaaliland ba intaba ka dhacay inuu sanadkan midnimadii isku duubnidii quwadda inuu yeesho wadaasiyada waa maalin mudan mar walba in si aad loo xuso waa maalin taariikhdeena ku weyn waana wanaagsan tahay marka runtii wax lagu diirsado marka ummadda oo dhameysii ay uga soo wada qayb gasho midaysan ay uga soo wada qayb gasho gudaha iyo dibadba marka runtii waxa sidii loo agaasimay iyo sidii loo soo baxay iyo sidii loo xusay sibay aad iyo aad mataqaanaa qalbigu ugu diirsanayo aad iyo aad u qiimo badan bay dadka Soomaaliland meel joogan bay ku farxayaan runtii sanadkan imika waxa inoo muuqdaa ciidamada qaranka qaybo gutooyin ka tirsan dawladda Soomaaliland waxaad moodaa in aad xoog saarteen in dhinaca ammaanka iyo waxaan cutubyadan ciidamada qaranka qaar ay waliba faramihii joogaan يعني sababta aad xooga u saarteen maxay tahay dawladda Soomaaliland in aad ciidamada qalabka sida Soomaaliland aad xoojisaan wadaasiyada Soomaaliland waxa la yiraahdaa waxay ku fadhidaa laba lugood midna waxa weeye waa amniga midna waa dimuqraadiyadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala dii labadaba ay siiyay laakiin amnigu qiimo weyn buu inoogu fadhiyaa waxaynu ku jiraa oo aynu mataqaana ku seexanaa waxa weeye waa ciidankeena iyo mataqaana ammaanka ay sugaan marka in la xuso si weyn loo xuso waliba si weyn uga soo qayb galaan munaasabadan oo kale aad iyo aad bay muhiim u tahay dadka reer Soomaaliland way ku farxayaan cadawguna wuu ka naxayaa laakiin dadka reer Soomaaliland waa dad nabad jecel oo jecel in nabad kula noolaadaan geeska iyo jaararkooda kula noolaadaan hadiise mataqaana nabadgelyada la damco in helis la geliyo waxay muujinaysaa awood iyo quwadda reer Soomaaliland ay leeyihiin si ay u daafici lahaayeen qarannimadooda waxa tahay wasiirka maaliyadda hay'adaha ammaanka maaliyad xoogan ba kulliba ku baxda hadafkiinu muxuu yahay maaliyaddan ku baxda ku qanacsantiin mise waxaad doonaysaan mustaqbalka in aad u laabataan ciidamada iyo quwadaha ciidamada militariga Soomaaliland iyo booliiska iyo hay'adaha ammaanka wadaamka aad baa loogu roon yahay amniga waxa la siiyaa qiyaastii 140% miisaaniyadeena amni bay ku baxdaa si toos iyo si dadbanba marka runtii waana ahmiyadda uu leeyahay markastabana waa loo heelan yahay waana heegana waa loo yahay mar walba awoodeena ku xiran tahay marka awoodeena kordhaba dabcan iyaga laftooda daryeelkooda iyo mataqaana xoojintooda way kordhaysaa mudane Dr. Saad waxa tahay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland bal waxaad faahfaahin naga siisaa horta maxay tahay wasaaraddan maxay qaranka u qabataa wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyaddu waxay qaranka u haysaa runtii shaqooyin aad iyo aad muhiim ah waxaad oran kartaa 3 ayaa ugu muhiimsan 3 tiir ka ugu horeeya waxa weeye waa sameynta miisaaniyadda waxa uu xil saaran wasaaradda maaliyadda ka labaad waxa weeye waa ururinta dakhliga dhaqaalaha qaranka ayaa u xil saaran tahay dakhligaas oo inta badan 2 meelood ka yimaada waxay ka yimaadaan customka waxay ka yimaadaan cashuuraha bariga shaqada saddexaadna waxa weeye in ay wasaarad walba iyo hay'ad walba wixii miisaaniyadda uga qoondeysan ay siiso kuna daba gasho hawlaheeda waxa saddexdaas baa ugu weyn haddaba
iminka muddo ayaad ahayd adigu wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland intii aad xafiiskan joogtay iyo guud ahaan wasaaradda maaliyadda waxyaabaha idin qabsoomay maxaa kamid ah inta sidaba dalmaro markaan waan wasaaradda imaado waana wasaaradda saddexaad waxaan isku dayay saddex wax aan ka bedelo mar waxa weeye waa bi'ada lagu shaqeeyo haday noqoto xafiisyada haday noqoto qalabka haday noqoto mucidaadka kale loo baahan yahay ee shaqaaluhu ay u baahan yihiin u gutaan xilka loo saaray xilka maanta loo igmaday kaas waa qodob kale waxa weeye waxaan isku dayay inaan ka bedelo hab dhaqanka shaqo oo wasaaradda walba waxaan kaga bilaabay inaan qorshe u sameeyo qorshe sanad u sameeyo qorshe 3 bilooda qorshe bil ah qorshe 7aada qorshe waaxidyo inaan u sameeyno inaan warbixino 3 bilood la sanad la bil la inaan sameeyno shirar joogtaa oo mataqaanaa fikirka la isku weydaarso waxna la isku faro oo iyaga laftigooda 7aad la maxay raadaan bil la 3 bilood la inaan sameeyno inaan qoraallo fara badan inaan sameeyno iyada laftigeeda oo hagayaale si dadka hawshooda u fushan lahaayeen tasdiixana waxa weeye waxaan kor u qaadaa hadii jiraan baad iyo aad ugu daalan kor u qaado aqoonta shaqaalaha marka saddexda runtii waan sameeyay wasaaradda intii aan joogay muuqaalkeeda wax badan baan ka bedelay xagga qoraalada iyo habka shaqo wax badan baan ka bedelay laftigeeda waxaanu ku soo kordhiyay laba waaxood oo cusub ku soo kordhiyay ilaa 16 tababar baan u sameeynay ilaa 29 qoraal oo kala duwan oo manual ayaan u sameeynay marka runtii wax badan baan ka bedelay maamulka inkastoo aan joogay inkastoo wasaaradda joogay ilaa 7 bilood guud ahaanba haddana way ka muuqataa dhinaca kobca dhaqaalaha maxaa idinka dhowr jeer waxaan aragnay warbixino kala duwan oo la soo saaray sicir bararkii oo hoos u dhacay mararka qaar xataa warbixin dhawaan maalin dhaweyto aad soo saarteen xataa inta fooxee wadanka ka dhooftay markaad eegto kobca dhaqaalaha qaranka maxaa iyadana ka waran wasaaradda maaliyadda ay kaga hadli karto ka sheegi kartaa horta guud ahaan daraasad la sameeyey 2012 ilaa sanadkiina soo dhaafay wuxuu muujinayaa in dhaqaalihiinu uu kobcay 2% sanadkii ayuu muujinayaa laakiin haddaan soo qaataba intii hadda aan joogay anigu meesha aan wasiirkaan ahaa xagga sicir bararka oo kale bishii January kal hore 2018 sicir bararku wuxuu marayay ilaa 9% buu marayay wuxuu hoos ugu soo dhacay iminka 3 bilood ee soo dhaafay wuxuu ugu soo dhacay ilaa 7% ayuu hoos ugu soo dhacay marka 19 buu ka yimi 7% hoos ugu soo dhacay marka runtiidaas waxa weeye waa arrin wanaagsan weeye sicir bararkiin mataqaan hoos u dhacay waayo sicir bararku wuxuu aad iyo aad u yeelaa u dhaawaca dadka khaasatan mushaharka ku nool xagga sarifka laftigiisa wax badan bay iska bedelay sarifku mar buu wuxuu gaaray 10,750 halkii dollar imika hoos wuxuu soo dhacay 8,350 hoos ugu soo dhacay dad egto xarakaadka mataqaan waxyaabaha dibadda ka keeno iyo laftigooda koran baa ku yimi taa 3 bilood dambeeyay waxyaabaha ama 3 bilood waxyaabaha inuu dhoofino marka loo eego 3 bilood hore sanadkii hore koran ayaa ku yimi marka runtii waxa mid dhaqaalo inkastoo laga cawdo dhaqaal hoos u dhacay ee busaarad oo ay jirto taana runtii ay keentay dhibaatooyinka badan ee inaga haysta caalamka imka xooluhu way naga xiran yihiin ninka dhaqaalihiin wax xoolo daraasadii la sameeyay 2012 waxay muujinaysaa 7% dhaqaalihiina waxa uu ka yimaada xoolaha waa inta waliba tooskii haddii inta dadbana lagu daro laga yaabo 50% inuu dhaqaalihiin xoolaha ka yimaado xoolaha meel baynu u dhoofin jiray Saudi Arabia baynu u dhoofin jiray way naga xiran yihiin dabcan taas waxay runtii keentay dhaqaale xumay keentay iyada lafteeda abaartiina soo martay 2017 abaariina soo maray oo runtii xoolaheena xoolaheena mataqaana day ku leedeen 7% loo dhanay ku leedeen dabcan dhaqaale xumay keenaysa wixii hantida haystay markaad lumiso dhaqaale xumay keenaysa marka taa lafteedu way iska jirtaa markaad wasiir Sacad aad eegto marka la leeyahay sicir bararka ama kor buu kacay ama hoos buu u dhacay yaa ka mas'uula inuu sicir bararku uu kor u kaco mararka qaar horta sicir bararka iyo sarifka inta badan waxa keenaa xaaladda dhaqaale marka taagan imka wax soo saarkeenu hadduu badan yahay oo mataqaana aanay jirin waxyaabo sababa in waxaan wax ku soo saaray in qaali ay noqdaan oo wixii la awoodi karo
sicir barar iman maayo meesha haddii waxaynu dhoofinaa ay badan yihiin oo markaa dalabka lacagteenu uu sareeyo lacagteenu way adkaanaysa markaa sicir bararka iyo sarif hoos u dhacaysna iman maayo marka runtii waxay ku xidhan tahay marbaba xaaladda dhaqaale iminka beriga dhaweeto sicir bararka wuxuu ka yimi saan kuu sheegay xoolaha la joojiyey mid bay ahayd maxaan idhahdaa abaartii iyo dee mataqaanaa dhaqaale hoos u dhicii abaartu ay keentay mid bay ahayd iyada lafteeda doorasheenu galay hadda hadii jirmka doorashooyinka la keeno lacag fara badan baa lasoo geliyaa wadanka kaan laftiisu sicir barar ayuu keenaa markaad runtii xaaladahaas oo dhan aad isu wada geegeyso ayaa sababaya sicir bararka iyo shilinka qiimo hoos u dhiciisaba mushtarka oo kale marar fara badan waxaan aragnaa in laga codsado oo la leeyahay dadkeena masaakiinta u naxariista mushtarka xiriir nooceeya baad la leedihiin ganacsatada waaweyn ee wadanka ka ganacsata in ay iyaga la fahantooda ay ilaaliyaan nolosha muwaadiniinta si aanay ugu qaali garayn sicirka oo kale xagga maciishada waxaan leenahay iskaashi wada shaqeyn wanaagsan baan leenahay intii yareedan joogay dhowr jeer baan la kulmay ganacsada la kulmay waxaan jecelahay runtii si joogtaa kulama joogtaan la yeelano waayo qaybta gaarka loo leeyahay private sectorku aad iyo aad buu muhiim inoogu yahay dhaqaale ahaan 90% dhaqaalaha iyaga gacanta ku haya shaqaalaha laftigooda 90% waxaa shaqaaleeya qaybta gaarka loo leeyahay ganacsada ayaa shaqaaleysa marka dabcan waa qayb muhiima waa tiir dhexaad oo weyn ay ka yihiin dhaqaalaha marka mar walba xiriir joogtaan aan wada yeelano iyo wada shaqeyn aad iyo aad bay muhiim u tahay arrimaha baaqa loo soo jeediyey waxa keenay maadaama uu sarifkii hoos u dhacay shilinka uu ka soo degay maxay dhahdaan 10,750 ilaa 8,350 oo boqolkiiba 22 uu hoos soo dhacay amba uu adkaaday shilinkii dabcan waxa loo baahan maadaama dawladda wax ku saabsan dollar ku saabsano inay ka muuqato ascaartii suuqa oo sida uu dhacay ascaarta suuqa si leeg ay u dhacdo waayo markuu inflation uu jiro ama sicir bararku markuu jiro dee ascaarta waa qiimaha waa la kordhiyaa markuu hoos soo dhacana dee hoos soo dhaco absolute marka sidaas hadii jir loogu baaqay inuu naxariistaan mudane wasiir waxa aan ognahay miisaaniyadda Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa ama dadka yani ka faalooda arrimaha siyaasadda ay sheegaan gibigeedu waa ilaa 350 milyan oo dollar haday ugu badato yani macquul sidee ku noqonaysaa qaran dhan in lagu maamulo 350 milyan yani Soomaaliland ay aqoonsi buuxa adduunka ay ka doonayso markii tiraado miisaaniyadeedu waa 350 milyan yani miyaanay arrinkaasi markaad dhinac ka eegto Soomaaliland aad bay u dhibaataysantahay ma oran karnaa hadda marka dhinac ka eegtana ma yara dhinac markaad ka eegtana waa yarti dhinac markaad ka eegto ma yaro halkan ka nimi haddaad aad eegto miisaaniyadda intaa leega waa miisaaniyad badan weeye dhinaca kale mise markaad ka eegto oo maalan haddii jeer waxaa lagu qiyaasaa wadan walbaba intay dowladdu ka qaadato dhaqaalaha iminka Afrika isku celcelin dowladuhu dhaqaalaha guud ahaan wixii ka soo baxa wadanka sanadkiiba 19% bay qaataan oo ugu adeegaan dadka waxay dabcan dowladdu qaadato dadkay ku soo noqotaa ama disa loogu talagalay waxay dadkeena ku soo noqoto oo amnigii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo kaabayaashii iyo waxaas oo dhan in marka lacagtu ka iman mayse waa lacagta cashuurta laga qaado maxay dhahdaan muwaadiniinta innaka markaad eegto dowladdu intay qaato ka qaato dhaqaalaha waa 7% ayaa lagu qiyaasay 2012 marka runtii aad bay uga hooseynaa marka loo eego xitaa Afrika wadamada horumaraya Yurub oo kale wadamada qarbiga way la 35-34 bay dowladdu ay qaata ka dhaqaata dhaqaalaha marka haddii aanu la mid noqon lahayn wadamadaas xitaa kuwa Afrika hadda la mid noqon lahayn waxay runtii inta dowladdu ay qaatay inay 3 jibaarinto marka adduunka miisaaniyadda markay tahay 300 hadii milyan waxay inay noqoto ilaa 900 milyan inay noqoto kada xagga laga eego صح ayahay laakiin de ruufay ma dhinaca kale cashuurta markaad eegto wadan wuxuu ku dhisan yahay cashuurta ummaddu ay bixiso iyo qaranku ay yani muwaadiniintu ay bixiyaan dadka qaar waxay leeyihiin dowladda Soomaaliland cashuur fara badan baa ka maqan ama bulshada ha kaga maqnaato ama ganacsatada ha kaga maqnaato inteen leg baa lagu qiyaasaa cashuurta ka maqan qaranka Soomaaliland ee kaga maqan ama ha ahaato inaan dowladdu si fiican aanay u raadsan ama aanay muwaadiniintu aanay ka qayb qaadan cashuuraadka dhiibaan iyo ganacsatada intaba horta cashuurtu waxay ka timaadaa waa laba ilood waa tahay
mid waa customka mid waa cashuurta beriga customka xukuma baadaan waxaa wixii customka soo mara wixii cashuur ku waajibtay waa laga qaadaa cashuurta runtii in badan ay ka dhiman tahay amba qabya ka tahay amba weli aan la wada bixin waa cashuurta beriga waa cashuurta macaashka la yidhaahdo waa cashuurta mushaharka laga gooyo waa cashuurta maxaa la saaray wixii la gato waa taas baan weli inoo soo wada xiroonin waxaanu baranayna maaha barashay u baahantay muwaadiniintu ay cashuurta ku degdegaan dadaal xoogana runtii waanu ka wadnaa arrinkaas sidii dadka loo wacyigelin lahaa waxaan ku boorinayaa runtii amba ku dhiirigelinaya amba ugu baaqaya dadka Somaliland shacabka Somaliland inay cashuurta bixiyaan waayo cashuurtu waa wax la wada leeyahay waa sanduuq la wada leeyahay waa waxa mataqaanaa haddii aynu macallimiinteena mushaharka ka siino buugaagta bilaashka ardayda loo qaybiyo waxaynu ka iibino cusbitaaladana waxaan ku dhisano ciidankeena quruxda badan ee halkaa maraya wuxuu ku jiro marka waa muwaadin ka qayb qaato muwaadin wuxuu ku yahay markuu cashuurta bixiyo iyaguna waxay leeyihiin dowladdu waana ka muuqataa wixii aan cashuur bixinay inay dowladdu ay iyaduna ay wadooyinkii iyo samafalkii walow ciidankii iyo laga shaqeeyay haddana dowladdu xariif kuma aha baa la yidhahdaa in ay tusto dadka wixii ay ku qabatay lacagtii ay soo gashay dadka shacabka dadka cashuur bixiyaasha xaq bay u leeyihiin dowladda inay weydiiyaan cashuurtooda meeshay martay in lala xisaabtamo dowladda xaq baa loogu leeyahay iyo in xaq wax loogu leeyahay cashuurta bixiyaan waa tahay dhinaca kale ganacsatada oo kale ganacsatada waaweyn waxaa la sheegaa in aanay cashuur qaarkood aad u yar ay bixiyaan oo ay dowladda halkaa cashuur fara badan ay kaga maqan tahay mararka qaarna waxaa la yidhaahdaa dowladda iyo ganacsatada heshiisya hoosaha ka dhexeeya oo cashuurta laga dhaafayo arrinkaa bal ka war wasiir horta ganacsatada cashuur waa laga qaadaa cashuur way bixiyaan laakiin intii ahayd inay bixiyaan ma bixiyaan way su-aashu si runtii intii dee looga baahnaa inay bixiyaan ay bixiyaan waxaa loo baahan yahay xisaab xidh oo cashuurta laga hadlaya waa macaash ganacsatada cashuurta laga qaada waa laba waa cashuurtii macaashka waxay macaasheen iyo cashuurta shaqaalahooda ayaa laga qaada waa labada cashuurad wey marka ta macaashka way tahadii jeer runtii laga hadlaa la yidhaahdaa ma wada bixiyaan amba in bay ka bixiyaan amba ma wada bixiyaanba marka taas waxa way ka bixiyaan laakiin si loo sugo wixii xaqa loogu lahaa inay bixiyaan waxa loo baahan yahay xisaab xidh kaasu dhaqankeena maaha in ganacsigu soo xisaab xidho ambaba ma lihin sharci odhanaya waxaa ku waajiba ganacsatada in xisaab xidh madax bannaan loo sameeyo waddankan ingiriiska oo kale haddaad company tahay waxa lagaa rabaa audited accounts waxay dhahdaan ya marka ma lihin inaku sharciga caynkaasi weli laakiin insha allah dadaal badan baanu wadnaa waxaanu ku buurinaynaa ku dhiirigelinaynaa ganacsatada in wixii dee ku waajibay xaq ah in iyagoo kusoo noqonayaa inay dee iska bixiyaan dhinaca kale iyadana waxa aad dowladdan Somaliland ee wasiirka maaliyadda ka tahay xoogga aad saarteen la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xoolaha dadweynaha inaan meel khalad aan ku dhicin arrinkaasi ilaa iyo hadda dowladda maxaa u qabsoomay maxaa baaqday ee ku bixi jiray ama corruption oo aad dadweynaha u sheegaysaa inaad ku guuleysateen oo leedahay lacagtaa waanu xayirnay lacagta sidaa ku bixi jirtay oo aanu mataqaana si kale nidhi ku odhan maayo laakiin waxaan ku odhanaya waxaanu ku dhaqanaa nidaamku siduu yahay shilinna ma galo meelaan loogu talagelin shilin waliba miisaaniyadda ku jiraaba madax buu ka yimaadaa meella wuu galaa loogu talagalay oo cayiman markaa sidii loogu talagalay baanu una ururina una bixinaa kaana waxaanu aaminsanahay nidaamka in loo raaco laakiin wasiir markaad dhinac ka eegto la dagaalanka musuqmaasuqu markaa wixii haddii ummadii yani ummaddana waa isku dhex noolayd waxaa laga yaabaa mushaharadu inaana ku filayn mushaharada miyaad u kordhisaan shaqaalihii si aa corruptionkii u yaraysaan madaxda qaranka miyaa loo kordhiyay mushahara ay ku noolaadaan ilaa wuxuunbaa keenayay corruptionkani waa mushahaaradii oo ku yarbay dadku ay badan ay yidhaahdaan arrinkaa ka waran iyada ma la kordhiyay standardka lifeka ama mushaharada dadka horta maaha in laysku xidho musuqmaasuq iyo mushaharka qofku waxa u xalaala wixii lagula heshiiyey xitaa haddaana ku filayn ayaa u xalaala laakiin qofku inuu qiil u sameeyo oo xoolaha mataqaana qaranka uu ku takrifalo isagoo odhan leh wixii laysiiyey iguma filla taasu qiil noqon mayso taasi mid qiila noqon mayso xagga cashuur xagga mushaar kordhinta laakiin muddaynu kusoo jirnay in mushaaharadoo yar qofku yar qandhiifto xoolaha qaranka
dadkii qofkii dadka ku xidhantay marba iyo nidaamka anuu runtii nidaam adag baanu sameynay in wax walba sidii loogu talagalay ay u baxaan in musuqmaasuq wax kale maaha wax weeye waa wixii aan sidii loogu talagalay loo bixin oo si kale loogu takrifalo dee loogu talagelin mushaharka shaqaalaha dowladdu ay qaateen waa mushahar aan badnayn uu yaryahay laakiin awoodda ayna dhigtay meesha waana la kordhiyey intii mataqaana dowladdii hore iyo tanba waxbaa loogu daray waa lagu kordhiyey imika sanadkan waxaa la qaadanaya xaqal ciid baa la qaadanayaa insha allah shaqaalo dhan ay qaadan markii ugu horreysay marka weli halkeenu doonay ma joogno insha allah waynu gaari doonaa marbu madaxweynuhu mar baa la weydiiyey oo la yidhi bal ka waran yacni xoolihii aad baad u adkayseen markaasuu yidhi weliba wasiir baan keenay sacdo haddaad islahaydeen waxbaa lasii xayira wasiir iga sii xayira marka waxbaad xayirtay maya wax allaali wax naga xayiran ma jira dal maro waxaan ku shaqeynaa miisaaniyad baan ku shaqeynaa sax miisaaniyadda hay'ad waloo dawliya iyo wasaarad waloo dawliba waxay ku leedahay saami bay ku leedahay saamiga ay ku leedahay inta badan waa mushahar sax innaka miisaaniyaddeena 49% waa mushahar 8% waa hawl socodsiin sax 20% waa horumar mushahar ma baaqdo mushahar xayiran oo la xayiray ma jiro sidiisiba u baxaa mushaharku marka lacagtan gentleman agreement baa meesha ka baxay lacagtan mataqaana hawl wadistana iyo deele shidaalkii lehe dayactirkii lehe spare parkii deena sidii loo socotaa waa tahay horumarkana sidii buu socdaa marka lacag si khaas loo xayiro meel lagu xanibay meel lagu qofiyay ma jirto laakiin waxaan isku falasiyeenaa exactly laakiin waxay leeyahay lacagtii political fundraising iyo lacagtii Soomaad arag dawladdu ay ku bixin jirtay in hogaamiye dhaqameedyada iyo waxba adigu dadka siyaasiyiinta qaar ba waxba ay saluugsan yihiin marka wasiir waxaan ay saluugsan yihiin maxay tahay ilaa waxba la xiray waxba naga xidhmay waxba socon jiray awal wadada waxba naga xidhmin oo waxa maana xirin laakiin waxaan soo maray xilli doorashada soo maray sax xilliga doorashada had iyo jeer wuxuu iska leeyahay lacag fara badan ba suuqa soo gasha maartay oo dadka musharaxiintu ay isticmaalaan ملاتاس هل التبيات لكن تحلي ذي معها exactly إن رنتي أدم كاجا مهد علني سعادة الوزير وحا إيضاً عن بالكاور السنة يا كل يبقى أرن كاماريد وات كهذا الشيء غالي سعر بركي قضب كاماريد يا شقة هذا سياسة الجودة قرن كانوا قلينا وحميد ددوين هذا الشيء مع عشورات ككوساب سن أما وسارة المالية ده الله هاي هرت السدبو يحرير كالله اللي يدهين دولة ده إن وسارة ده كله مرة بدو حنا رجنا يضو الذي كعبنا يقول اللي هاي إن ميد الدتشين هوشي أنو كذل برني إن وسارة حرير نوعي بدل اللي يدهين هذا تيم وسارة المالية ده وسارة حلو وناكسن أيام ولا لنا أنا سام كل شيء حرير وزارة وحكم ذا دغالة ورورين هي دغالة بحين حبك دغالة ولا بحين نظام بولي حب الله مرة وزارة وارن بيصود البطاء يضو كسرين يسمى ميزانية دي وارن كاسوح تقول حسابيها جود فوت بوك بلوج اللي وحلا يلاحظوا مركز دمنا مركز خرج كجشو وأنا استحبال لي هي لوسي داية فوتشر هذا يصوح ريان ساس بالوصية حبك الله دقمه يعيد له ميزانية دي أنت هذا وهشوا وحبيس كم بدل صح وحنوش على ولي وحبا بوني وقت وده كله مع ذا ومشاركين بش اللي قاعدين لما ما يستروا وحي خرج هذا كده بش انتهى دمانين إذا لفتي هذا وحي حوالي اللي بهين لا قبته إن مدن وزير واحد هذا بقى نقول لنا بالسياسة الجودة قرن كا وفود فربضان أي سنة كان كسوق القشة سفير رؤبضان وزير رؤبضان الدكتور إن أوباسانجو مدحويني هراء نيجيريا ودن كيمي ما حد مرينا سائنا سببتي إن أدونكم يبدلي إن ليه وكو إيجي شري سومالي لان هذا كهر وارتدا كلي وعالمكم معلم ما أنت كده مسوي حقيقة سنة شريتانك السومالي لان أهمية أولاد هاي ديسك أولاد هاي هذا النقطة حق نبضات حق استراتيجيات حق نقالة انتبه وأنا رنتي وحسوس سعودي لكن سنة كان يمكن أفرتي برود وهري ورنتي واحد الحركات بدن باكري وحين صومري لا يمكن لا سدح وزير بين صومري وزير كدفاع إنجليز ونو يمي وزير كريمة دبدي إريتريا ونو يمي وزير كحيان كريمة دبدي مساردنا ونو يمي وبسانجو هو هانشري سدح شري مدحوينها نيجيريا ونصوب بقضي ونصوب شرفي سفير فربان بينو يمو كبدن إلى طبعا كبدن ما فيها كمرين كوكتشرو كإنجليز كوكتشرو مركا رنتي
xarakaad fara badan baa jiro muujinaya maaragtay dee halka waa maraya dee maqaamkeena iyo ahmiyaddeena iyo dee ixtiraamka caalamka inoo hayo muujinaya ayaa runtii intan sanadkan inoo dhacay. marka aynu eegno iyadana kama maqna arrimahan wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland dad fara badan waxa ay leeyihiin yani wadahadaladaasi wax midha ama dhalayaan maadaama dawlad adag oo sida dawladda Somaliland oo kale aan Soomaaliya ka dhisnayn. dawladda Somaliland mowqifkeedu muxuu yahay madaxweynuhu uu ku celceliyay dhowr jeer wartaynaga madaxweynuhu saa sheegtay dhowr jeer buu ku celceliyay diyaar inuu yahay in wadahadaladii dib loo bilaabo. wadahadaladaasi mudday soo socdeen ilaa 8 kulan baynu isugu nimi waxa runtii fara badan oo arrinkaa ka dhashay ma jiro marka laga reebo laba shay oo ka soo baxay waxay ahaayeen inaan la carqaladaynin wixii mataqaanaa mucaawino ah iyo horumar ah iyo dhaqaalaha dhinacba inaan la carqaladaynin. waxaa kaloo ka mid ahayd in wixii hay'addan ECAW la yidhaahdo ee maamusha hawada wixii ka soo baxay inaynu qaybsanno oo wada maamulano. horta labadii way ka baxeen labadii shayba Soomaaliya way ka baxday hase yeeshee weli way ku afgabaadsadeen inay diyaar u yihiin oo dhowr jeer buu farmaajo yidhi inuu diyaar baanu nahay Somaliland wada hadal inuu la bilowno laakiin runtii kama muuqato daciifnimada dowladda waa ka qayb oo mar haddii dee madaxweynaha iyo mataqaanaa ra'iisul wasaaruhu arrimaha ay gooyaan aanay isku hubin inay dowladoodu inay kula mataqaan la qaadanayso iyo baarlamaanku inay la qaadanayaan iyada laftigeeda waxa weeye way saameyn bay ku leedahay marka waa ka mid waxyaabaha mataqaanaa saameynta ku leh. haddii ay dhacdo oo ay wada hadal ay iyaguna xaggooda dadweynuhuna uu ka qayb qaato dhowr jeer waxaad tirahdeen fagaarayaal caalamiya waa in ay garta Somaliland iyo Soomaaliya ay ka dhacdaan maxaad fagaarayaasha caalamiga ku doorbidaysaan dawladaha gaar ah imka Ethiopia kale inay iyadu u doorbidi weydeen dawladaha dariska ama mar walba waxaad tirahdaan fagaara caalamiya waa in garteedu ka dhacdaa maxaa sababay? horta Ethiopia fagaaraha caalamku bay ka mid tahay arrinkeenu arrin daakhiliya ma marka qaarkood Soomaaliya waxay isku daydaa inay ka dhigto inuu yahay arrin daakhiliya oo ka dhaxeeya mataqaanaa dee waddan gudihii ma inagu waxaynu kala tagnay oo kala baxnay 1991 laba waddan oo kala jaadabeen oo kala madax bannaan arrimaha inaga dhaxeeya wixii aynu ku heshiinaa dee waa meeshiida laakiin waxaynu u baahannahay inaynu arrinkeena aynu geyno fagaara caalami oo caalamku markhaati inooga noqdo weliba muddamin inooga noqdo wixii aynu ku heshiino ayaynu u baahanay marka taas waa inaka mowqifkeenu. marka dhinaca Somaliland oo kale xusbiyada mucaaradka waxay yiraahdaan waa inaanu ka qayb galnaa waa in la ballaariyo golaha cidda matalaysa Somaliland xataa niman professor raa oo hadlay la fahantooda aad bay uga hadleen marka ma dawladda Somaliland oo kaliya ayaad ku doonaysaan in aydun gartaa kaga qayb gashaan mise waxaad doonaysaan in aydun arrin qaran oo ballaaran oo xusbiyadana aad ka qayb galisaan iyo intellectualka Somaliland? horta ma wada tashiga mise hadalka had midba wada tashiga dabcan dee waa in la ballaariyo oo cid ilaali cidda lagu tuhmaayo dee aqoon iyo waarignimaba in laga qayb geliyo axsaabta mucaaradka laga qayb geliyo aqoonyahanka laga qayb geliyo odayaasha laga qayb geliyo dhalinyarada laga qayb geliyo waayo waa qadiyad dee saamaysa qaranka laakiin marka timaado dee horfadhiisiga dee dowladda waxay saaran marba dowladda joogta ayaa ka mas-uula marka dawlad ahaan baad ku tageysaan qaybta aan iyadana bal aan gudagelayno waxa inagu soo foolay doorashooyinkii baarlamaanka iyo tii deegaanka dhinaca dawladda waa runtii meediyadana aad baa loogu celceliyay waa ka qayb yani si ballaaran baad ugu diyaar garowdeen laakiin weli waxaa jirta xurguftii siyaasadeed ee xisbiyada aan weli isku marin arrinkaasi carqalad intee leeg bay ku haysaa doorashada in xisbiga wadani oo kale imika uu yani aanu ka mid ahayn yani inuu doorashadan ka qayb galo? horta doorashadu runtii waa doorasho aad iyo aad u muhiima qaran ahaan baynu u baahannahay dadkeenna u baahan axsaabtaaba u baahan iyada laftigeeda aad bay u ficnaan lahayd in xilligii loo qabtay 12 Disembar inay dhacdo ayaa aad bay u wanaagsanaan lahayd waa run laakiin weli waxaa jira waxyaabo fara badanna waa la iskaga soo dhawaaday waxyaabana weli waa qabiyo oo way dhiman yihiin markaanu runtii horta saa uma dayriyeen waxaan aad ugu rajo weynahay oo dhaqankeenana ahaan jirtay dee kuna soo barbaaray in marka ugu dambeysa in laysu yimaado laysla fahmo laysu tanaasulo
sidii mataqaan iyadoo leeyahay danta qaranka wixii laga maarmi waayo marka la yeelo waxaad imika hadalkaa ka mid a inaad tiri waa aad bay muhiim inoogu tahay sababtay muhiimka u tahay maxay tahay doorashadan baarlamaanka iyo 10 deegaanku horta sideedaba dimuqraadiyaddu doorasho maaha dimuqraadiyaddu waa doorasho xilligeeda ku dhacda marka saad ka warhayso dee beri hore noogu dambeysay maxay dhahday dee doorashada xildhibaanada oo kale sidoo kale doorashada deegaanka waxay dhacday tii dambeysay waxay dhacday 2012 mid walba 5 sano ay ahayd mid walba dee muddo fara badan ayaa ku biirtay marka dadkay doortaan waxay siiyaan mandate amba kalsooni muddo mucayana sax haddaan kalsooni ku siiyo muddo 5 sanadooda dee 6 sanadood kuma siinin 7 sanadoodna kuma siinin waa lagu soo celisay awoodda marka 5 sanadood markay dhamaato ugu dambeyntii waxaa had iyo goor Somaliland waa dal dimuqraadi sida aad sheegtay dimuqraadiyadana muhiim bay u tahay marar fara badan waxaan aragnaa iyadoo laga hadlayo arrimo saami qaybsi marar fara badanna way nagu soo noqnoqotay laakiin wasiir arrinkan ama mar waxa la yiraahdaa beesha dhexda wax is wada qaadatay beelaha shaqoonayaasha la ilaaway yani arrinkani nin wasiirana waa tahay dawladii Somaliland ku jira dadku muwaadiniintuna waa dad walaalo ah oo waxbay kala tabanayaan badankoodu in arrinkan uu nagu soo noqnoqdaa beelaha koonayaasha beelaha dhexda isa siisa samaysay arrinkani yani marmar waxaad soonaysaa Somaliland ma dimuqraadi ba mise waa beelay u fadhiyaan arrinkaasi dawlad ahaan sidee baa u dareentaan inay culays idinku hayso horta dabcan culayskeeda waranku iska leeyahay Somaliland reer ma laha gobol ma laha waa qaran xad leh cid kastoo xadkaa ku jirta aba cid kastoo sidii constitutionkeenu sheegayo muwaadin Somalilandari waa ka qayb buu ka yahay waana muhiim qof walba inuu dareemo inuu qayb Somaliland ka yahay inuu wax ku leeyahay in lagu matalo waa dareenka dadka shacabka dhammaan qabo waa dareen aad iyo aad u muhiim ah waana tahay in laga shaqeeyo haddii ay jiro dareena yani cid baa ka maqan amba cid baan wax ku lahayn isaga laftigiisa in dee hoos loo eego oo la dhayo wax laga qabtay isaga laftiisa waa muhiim aad baad u mahadsan tahay daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh barnaamij aad u qiimo badan wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa igu soo booqday stuudiyaha magaalada London oo uga mahad celinayay sida wanaagsan ee wasiirku uu idinku waramay mudane wasiir qurba joog fara badan ayaa ina daawanaya barnaamijkeenan waxaad moodaa kaalintii qurba joogu in ay sanadadan dambe ay hoos u dhac ku yimi maxaad kula talinaysaa qurba jooga faraha badan ee maanta ku daawanaya inta qurba jooga aan lafta ka mid baana qurba jooga runtii waxa saaran xil weyn baa saaran waxyaabo badan baa looga martiyahay tabriyahan dambe waa meesha siyaasaddu ka socota Somaliland marka waxa loo baahan qurba jooga horta inuu midnimo muujiyo ayaa looga baahan yahay waxa kaloo looga martiyahay aqoon dadkiina aqoonta la dibadda joogaan aba kuwii markuu la yimi ha ahaadaan aba kuwii halkan ku barbaaray ku bartayba ha ahaadaan marti bay nooga aqoon waxa kaloo marti looga yahay maal inay wadanka yimaadaan ay maal gashadaan way ganacsigiisa maal gashadaan warshadihiisa maal gashadaan beerihiisa maal gashadaan wax ka dhistaan tan uga marti bayna su-aashaas runtii waxay xasuusisay arrinta maalgashiga qof baa maalin dhowto runtii su-aashaasna waa jecel inaan ku weydiiyo TV-ga nala soo xiriiray waxa uu yiri waxaan doonayaa Somaliland arrin aan ka maalgashado waxa la ii sheegay bay tiri inantaasi inaan arrintaas aanan maalgashinta xaq u lahayn sababtoo ah already waxa jira shirkad ka shaqeysa arrimahaas oo hadda carabaabaynin ma waxa jira sabab qofka markuu doonayo inuu maalgashado waxyaabaha inuu ogaado oo inuu iska sii ogaado waxyaabaha maalgashiga uu xaq u leeyahay mise wax kasta uu maalgashan karaa qofku Somaliland horta hadii dhaqaalaha constitution u dhigayo bay historian u dhigayo waa xor meel xiran ma jirto laakiin haddii warshad caana jirto warshad caano kale miyaad ogashihiin in qofku haddana uu dhiso oo maal gashado dabcan haddii qofkaas uu maal gashanay haddii keenayso dhaqaale burbur kuwii ka sii horeeyay iyo isagaba dabcan dee waa la isku leeyahay la soo nastaxeeyo sax ya wadima doonin wadanka wadiga arkay haddii doonaysa inaad ganacsi ka furto wado haddii ganacsiga mid lamid ma shaqaan uu ka yahay marka horeba uu ka jiro wax laga yaabaa inaan lagu siin ruqsad
وكجرتا أساس سومالي halkan deme halkan waddankan ingiriiska إنجليزي كجرتا waddankan ingiriiska oo kale ها dad cunayna مثلا maxaad McDonald meel ka furto ده واحد يقول لي haddii mid kale ay jirto laguma ogola exactly marka dabcan dee dhaqaale waa la wada leeyahay qofku wuxuu leeyahay qarankuna wuu leeyahay haddii waxay ka baaba'ayaan oo loo nasteexeeyo oo la yidhahdo meedii waxbaa haru jiray oo haddii adiguna aad samayso taaduna way kaa baaba'aysa tana way kaa baaba'aysa taa caalamka oo dhan waa laga sameeyaa laakiin guud ahaan inaga dhaqaalaheenu waa mid xora qofku meeshuu doonana wuu maalgashan karaa xilligu doonana wuu maalgashan karaa haddii aanay jirin dee wax mataqaanaa arrin qaran amba mataqaanaa security la xidhiidha oo kaa u diidaya ugu dambeyntii iyadana dad aada u badan oo Soomaali ah ayaa iyaguna doonaya inay Somaliland ay maalgashadaan habkeebaa loola dhaqmaa imika maal ganacsatada waaweyn ee Soomaalida waddanka dariska aynu nahay ama Djibouti oo kale ka yimi ama Ethiopia ee doonaya inay iyagu Somaliland ay maalgashadaan shuruudaha looga baahan maxaa kamid ah horta dee dad fara badan oo imika baa wax jira aan Somaliland lahayn dee maalgashada ka Somalilanderka iyo ka Somalilanderka ahaynbaba qofkii maalgashanaya waddanka isku dajid bay marayaan oo shuruuday wada buuxinayaan haddii qofku مثلا ma doonayo inuu kaba bilaabo inuu campaign sameeyo habbaa jira dee campaign loo sameeyo oo loo maro loo diiwaan geliyo maxay dhahdaa iyo cashuur laga qaado kaasuu maraya halkuu sidoo markaa qofku degayo iyo dadka soo shaqaalaysiinaysanaayo dabcan dee sharciga guud buu raacaya qaranka u yaala exactly aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh halkaa waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeenii gaarka ahaa ee aan halkan wareysiga kaga qaaday Dr. Sacad Cali Shire oo ah wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland waana barnaamijkeenii gaarka ahaa waanigoo dalmar oo idinla sida ay nabadgeliyo Sacad wasiir aad baan kaaga mahad celinayaa barnaamijkayga la qayb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa 100% waa tahay daawadayaal imkan waxaan u gudlaynaa barnaamijyadeena kale ee telefishinka qaranka Somaliland ku talagalay sida iyo